بسم الله الرحمن الرحيم وأن بقادين يا هيئة باريستا تيلا ما تيلا يا ماريه هذا يا شغاله هذا هوشان عروس دلك وهيان يا برغو أي برابين إن نجاه بيان وحي عنتو يا قلب رئيس مريو يا واحد كستوى شركة وحده معايو وعبد نجاسو قاره سألنا تاوجانه ونوحق يجنه وحال سيدور قلوب بينو بحناي مركب هوري قف كسته ماريا كبلو قدر كدر شقارها وحينو بحناي قف والأو هيدك شقيا إلو كريا قوتيسه وآد اسقود ودداره إن أوبرته هاوشان آد خصك جار كاوه كيميكال كاه caafimaadka bini aadmiga saamaysa waad soo barateen jaamacadaha ka soo baxdeen iyo iskuulada laakiin taasi kuma filla maalin walba adduunka waxa isbedelaya waxa soo baxaya scientific cusub marka taa way ku dardaaraya talabaad waxaan isku dardaaraynaa hay-adda guddida tayada shaqaalahooda maareeyahooda iyo xafiiska madaxtooyada hoos timaadaanba waxa qura ee xilkan la gudan karaa haddii aynu helno dhowr arrimood marka hore bini aadmigu sidiisaba haddii xilka uu qaado uu ka soo baxayo mid cibaado iyo mid nolosha aba diimaha oo dhamme oo ta islaamka ugu weynta ugu dambeysay may fareen in badan digniin badan iyo shuruuc badan oo ilaa dil laga gaarsiiyo haddii uu bini aadmiga dilo ama uu khiyaameeyo diinta islaamku in badan bay iwaanisay laba qodob oo hay-addan dusha ka saaran mid waa bini aadmigu fuliya ballantaa qaadaan tayada waxaad tidhaahdeen caafimaadkiina somalilan iyo intaa wax ka iibsadaa hanagu aaminaan annagaa u qabanayna annagaa idinka ilaalinaa inay cuntada iyo dharka iyo cabidaba aanay ku jirin wax caafimaadkiina waxyeela haddaba ballan culus oo dusha ka saaran hay-adda tayada iyo cidda ka mas-uulka aba taas see lagu helaya haddaba in la xaqiijiyo waynu sheegnayoo bini aadmigu isma kantaroolo culimaduna waxay tiraa shaydaankaa ku badan markaa shaydaanka siduu isaga celiyo 5 goor tukada cibaadaysta akhriya uruud galabtii aroortii in badan baa laynooga diga shaydaankuna meelo badan buu soo galaa damaca hunguriga faanka madaxnimada meelo badan buu soo maraa markaa tan idinka kan idinku soo hagaagaya waa kii ugu khatarsanaa caafimaadka biniaadmiga soo maray si aanu shaydaanka haddaba iska ilaalino waxaa looga baahan yahay hay-addan aynu heshiis ku nahay maareeyaha guddida iyo shaqaalahaba in qof waliba qofkaa uu xukuma uu ka sarreeyo ama uu aqoon ahaan u maamulo in uu ku ilaaliyo qofkaasi inuu shuruucdii iyo xeerarkii loo dhigay iyo standardskii uu qofkaa ku ilaaliyo oo si adag ugu daba joogo hadday taasi dhici weydo oo sida hawlaha kale caadiga faraha badan ay arintaas dabac keento hadda ogaada waxaa soo dambeeyay qaadana bini aadmiga dhaqaalihiisii caafimaadkiisii noloshiisii wixii dhan baa meesha ka baxaya marka idinka waxa idin dheer qolada la yiraahdo ciidamada ayaa la yiraahdaa adduunka way ugu sharci adag yihiin oo ninka askariga ninku ka sarreeyo markii dagaal ku jiro wax ku xoreeyay qoriga halkaa ka soo dhacay amsi laabta u dhig uu dhiga hadduu dhigo waana dil baa xiga court marshal koonaaba la soo tagaanin baqday dee cadow xabad soo ridayaa la yidhi halkaa la gaarsiiyey bal dadkiina loo dhigo waxaan la arkayna ilaaliya ka warrama nagla janisiyo mid baa ka seexday iyo qalabkaasano dhan aqoon baa taabtay iyo khatarta caalamku galaya waa farabadii marka haddii aynaantaa ku adkaynin dee maxaan u samaynaynaba qof waliba ha ku tashado hay-addan inaana sheeko iyo ku gelaynin dulcarar hawshaasina xubintan ugu weyna waa maareeyaha iyo guddida
hadday labaduba dayacaana anay soo fuulaysa marka inteena asaa u qoolaanana ilati laxuska laba timaadaan markaanu kaadigsanaana intaasi waa hawsha halkan looga baahan yahay wixii kale ee qalaba waxaa jira qalab fara badan oo hortiin abuurmay laboratoriyaal badan baa jira hay-ad waliba biyo wado dhismaha cisbitaalka laboratoriyaal badan baa carriga yaala marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin aynu qalabkii helno waxaanu doonayna aynu doona inaanu xalilo laakiin inay ku daro aqoontii iyo disciplinkii sharciga la isku xukumaya qofka shaqeeya hay-adan tayada wasdadu hadday soo gasho dadkaa laynaysa waan ogahay madax fara badan madax dowladeed tu dhaqan tu ganacsi dad badan baa idiin iman doona shaqaalaynta marka alaab la qabsado xaajiga hebeltiisi baa la qabsan doonaa dhibaataa ka iman doonta haddaydan u dhabar adeegin inaad ku adkaataan sharciga ogoobay dadkii halkaa waxba ka soo baxay marka taa waxaan ugu dheeraanayaa waxaana way nagu cusub yihiin laboratoriga iyo waxaan casrigii aad iyo aad bay nagu cusub yihiin marka waxaa ka mid tihiin hay-adda wuxuu kusoo ururayaan qalabadaa faraha badan ee meelaha hore yaalla ee idinkeeda huseeya dhammaantood waxay hoos iman doonaan standarka halkan laga qabto hay-addu iminka intaasoo shaqaalaha iyo intaasoo qalab meeloontooda iyo maamulkooda wada ku ballaaranaya laakiin maxaa dhacaya wixii kale qalab la keenaya wax kastoo halkana la keenaya qalabadana iminka dhowr sana ma dhaafaan waa tan dee wuxuu laga soo tuuraya caalamka wixii waxba cusub sanad laba laga soo tuuraya marka waxa weeye qalabada meelaha yaalla oo dhan circular dhammaan standardka halkaa laga xukumaya qofkii maamulkeeda hayaa ha ku dhibsooda isagu hadduu standardka laboratorygaasi iman waayo ka aadi ku dhaweeya petroolku hadduu keeni waayo standardka halkan isagaa u taalla ka biyaha ka dhismaha mid kasta waxa weeyaan ama wajaalo ha yaalo ama lascaanood ha yaalo ama ceergaaba ha yaalo laab oo dhan standardkan waa laga certify garaya waayo halkana qaranka ka mas-uula xilkaan idinkaan idinku ogyahay waxaan rajeynayaa inaynu waddadaa qaadno inaad aada isu ilaalisaan mas-uuliyadda ugu weynaa waa guddida iyo guddoomiyaha waayo anagu markaa waxaad soo gudbisaan baanu aqbala waayo aqoontii aan isku baanahayn maanaa si diyaara idinkaa laydin aaminsan qualitygii ma soo gudbay haa ilaa inanka yara laboratoryga talabada horse soo qaadaya mas-uuliyaddaas wa saaranta ogaada waan idin hambaliyeynaynaa waa idin mahadnaqaynaa waa idin dhiirogelaynaa aad iyo aadna waa idinku faanaynaa haddaad ummadda caafimaadka ilaalinaysaan waana mahadsantii wasalaamu calaykum